guri walba waxaa yaalla ugu yaraan hal remote control kaasoo loo isticmaalo qalabyo badan oo kala gedisan sida tv-ga, raadiyaha, air conditionka iyo kuwo badan. laakiin weli ma isweydiisay siduu u shaqeeyo remote controlka? videogan waxaa ka baran kartaa sida uu remote controlka u shaqeeyo iyo sida u control kartid tv-ga anagoo isticmaalayn remote-ka. okay, hadda marka waxaan fiirinaynaa waxyaalaha aan u baahannahay inaan fahmno intaana bilaabin projectigan. kow waxaan fiirinaynaa waxa waaye IR-ka mase infrared-ka waxa uu yahay. labo, protocolkan dhahayo NEC oo uu isticmaalo remote-ku. waxaan isku dayaynaa protocolkan NEC-ga in anagu gacanteenna aan ku samayno waxa dhahay decode, macnaheedu waxa waaye aan fasirno wuxuu u taagan yahay code kasta. in Arduino isticmaalno oo signalka naga soo galaya IR receiver-ka xareysano. tan ugu dambaysa signalkan aan xareysanay inaan mar labaad dirno si aan TV-ga ugu dirno. IR ku siisaba waxa uu taagan yahay waxa la dhahayo infrared, kaas oo ah nal iftiimaya. nalka aan aragna annaga indhaheennu ay arkaan wuxuu u dhexeeyaa wavelength-kiisa markaan fiirinayno wuxuu u dhexeeyaa 400 nanometer ilaa 700 nanometer. laakiin infrared-ku wuxuu isticmaalaa wavelengths uu ka weyn yahay oo wuxuu isticmaalaa 700 nanometer ilaa iyo 1 millimeter. taas macnaheedu waxa waaye ma arki karno infrared-ka waxa la dhahayo. sababta loo doorsano taas waaye remote-ka iftiinka la isticmaalaya, iftiinkana indhaheennu ma arki karaan. midda kaleeto oo infrared-ka ugu fiican yahay waxa waaye aad iyo aad raqiis u tahay in la sameeyo nalalkan. marka haddaan fiirino nalalka infrared-ka, midna waxa waaye kan nalka arkaya, midna waxa waaye kan nalka diraya. marka kan waxaan u bixinaynaa transmitter mase emitter, kana waxa waaye receiver. remote-ku asagu wuxuu leeyahay waxa la dhahayo emitter, macnaheedu waxa waaye nalka ayuu diraya remote-ku. TV-guna kan ayaa ku jira madow. waxa kale lagu garan karo receiver-kana waxa waaye horta wuu madow yahay. sababta uu madow yahana waxa waaye maadaama nalka aan aragno wavelength-kiisu isku dhow yihiin, kalar madow waa la mariyey si looga ilaaliyo. haddana waxaan u gudbaynaa waxa la dhahayo NEC protocol. NEC protocolku wuxuu ka kooban yahay 6 section ka kooban yahay mise 6 qaybood. qaybta koobaad oo tan ah, kani wuxuu sheegayaa signal inuu soo galayo. midda labaad oo ah addresska TV-ga. midda kaleeta ah addresskii oo la gediyey. dib aan ka arki doonaa waxa laga wada la gediyey, laakiin haddaan wax yar idin fasiro waxa waaye eber meeshii ahayd waxaa laga dhigayaa hal, meesha halana ebra laga dhigayaa. marka hadda inta kulli dhanba address waa ku qoran eber waaye, marka kulli waxa loo bedelaa hal. kan ku xiga waxa waaye waxa la dhahay command. command-ku waxa waaye waxyaalaha aad remote-ka ka soo diraysid markaad rabtid inaad taabatid. 2 3 4 demi daar gudbi, waxaas dhan command-ka kuwaas waaye. section-ka ku xigana waxa waaye kan la dhahayo inverse command. macnaheedu waxa waaye asaguna signalkii baan gedinaynaa, bit kasta ayaan gedinaynaa. marka bitkan halka ahaa waxaan ka dhigaynaa eber, kan eberka ahaana waxaan ka dhigaynaa hal. saasaan kulli wadaynaa. tan ugu dambaysana waxa waaye signal yar oo taasoo noo sheegaysa inuu dhammaaday communication-kii. waqtiyada haddii la kala fiiriyo, hadda start section-ka haddaan fiirino 9 millisecond inuu waxa waaye signalku high ahaado waaye. 4.5 waa inuu ahaado low. intaan waxay ka kooban tahay 32 bit. macnaheedu waxa waaye meel kasta oo signal kasta wuxuu taagan yahay hal bit. 8 waa addresska. 8da ku xigtana waxa waaye kan la inverse address. 8da kale ku sii xigta waxa waaye command. 8da kale ku xigta waxa waaye inverse command. marka signalku hadduu logic hal yahay, macnaheedu waxa waaye hadduu remote-ku hal soo diray, waxaa lagu garan karaa halka waxa waaye horta waqti ahaan wuxuu qaadanayaa 2.25 millisecond. 560 microsecond-ka ugu horeeya signalku waa inuu high ahaadaa. inta waqtiga ka dhimanna waa inuu ahaada low. eberku kulligu horta wuxuu qaadanayaa waqti ahaan haddaan fiirino wuxuu qaadanayaa 1.12 millisecond. sidii kii horeeto signalku intuu high ahaanayo waa 560 microsecond. waqtigan inta ka dhimanna waa inuu ahaada low. marka waxa kala garanaa waxa waaye inta uu dansan yahay logic high-gu ayaa ka badan logic low. waxaan isku dayaynaa inaan signalkii oo ka imaanayay remote-ka aan decode ku samayno manually isticmaalna gacanteena si aan u turjunno wuxuu u taagan yahay. marka waxaan isticmaalayaa software-kan la dhahayo Logic 2. marka waxaan sameynaa waxa waaye waxaan taabanayaa meeshaan la dhahayo start. macnaheedu waxa waaye wuxuu sugayaa signalku sugayaa markuu helo kadib
meeshaan noogu xareynaya waxaan taabanaa start kabacdi remote-ka soo qaadana meesha laga damiyaan taabanaya waa kaasa had signalku noo xareeyay waa kana signalkiina qaybtan bas aan isticmaalaynaa inta kale waxa waaye xogaa remote-kan hayay mar labaad isku dayay inuu soo bilaabo laakiin naga dhaaf kan marka haddaan fiirino signalkan horta sidiisaba waxa waaye meeshaan waxaa ku qoran 9 millisecond inuu kani dansanaanayo kadibna 4.4 inuu daarnaanayo fiirsid wuxuu u egyahay kii aan ka hadlaynay laakiinse uu gedisan marka hadda signalkan copy aan ku samaysanaya inta ayaan imanaya saasaan isku soo qaadanaya kadib waxaan sameynaya paint software la isticmaalaya software-kan paint la dhahayo signalkian soo gashanaya waxaan sameynaa right click kadibna waxaan leeyahay gedi sida kale noogu gedinaya marka haddaad fiirisid protocolkii uu egyahay marka inta horeeto wuxuu ahaa 9 millisecond buu ahaa 4.4 millisecond inta ku xigta waaye marka waxaa noo haray waxa waaye inaan kuwan waxa ibirka iyo waxa halka aan fiirino si aan data iyo soo saarano marka taasna horaan u sameeyay marka waa kana asagii soo turjuntay oo anigu gacanteeda ku sameeyay waxayna ka hilmaamay waxa waaye software-ka magaca junta halkan fiirino waxa ku qoran intan inuu yahay 548 microsecond waxaan dhahnana waa inuu ahaadaa 560 microsecond laakiin taas dhib ma leh waxa ku qoran signalkan high intuu yahay intuu low yahayna waxa waaye 1.27 marka wuxuu u dhow yahay kii aan dhahaynay logic low marka macnaheedu maxaa waxaan ka garan karnaa meeshan inuu yahay meeshan kan logic low inuu yahay kan ku xiga sidoo kale logic low logic high marka hadda aan arkayna sidaan u turjumanayno kan koobaadi saan dhahnay waxa waaye waa ibir halkan laga bilaabo ilaa halkan waa ibir halkan laga bilaabo ilaa iyo halkan waa hal maadaama inta uu daaran yahay ee tahay 560 inta uu dansan yahayna tahay wax aad uga dheer marka sidaas waxaan garan karnaa inuu yahay hal inta waa ibir kan waa ibir waa ibir waa ibir saas aan wadaynaa marka waxa kan 8 bitkii hore waaye waxa kaleeto kan ku xigaana kanoo la gediyo waaye marka macnaheedu ibir hal uu noqonayaa ibirtana halka uu noqonayaa halkana ibir uu noqonayaa inta kaleetana wax noqonaa hal wakaasa kan waxa kii lahay command haddaan decode ku sameeyno datan waxa waaye wuxuu dhigmaa decimal number-kan wuxuu dhigmaa 8 kani wuxuu dhigmaa 251 decimalka kana wuxuu dhigmaa 4 marka command-ka haddaan ka hadlaynay ma haddaan gedino saan buu noqonayaa meesha halka ku jiray bas ayaa ibir noqonaysa ibirada kaleeto waxay noqonayaan hal kan wuxuu ahaa manually anaga decode ku sameynaynay haddana waxaan sameynaynaa waxa waaye meeshan ayaa waxaan sameynaa Arduino-ga inaan ku xareysano signalka naga soo galaya remote-ka waxaan isticmaalaynaa horta library-gan oo Arduino-ga ah kaas waa caadi si aan u isticmaalno infrared-kan remote-ka waxaa la sameeyay library-da sameeyeen way ku mahadsan yihiin oo noo fududeynaya inaan remote-ka waxa ka soo galaya inaan dhaqso qabano oo aan kabacdi turjuman karno library-gan wuxuu na siinayaa class la dhahayo mise object la dhahayo magacaas leh kadibna waxaan sameynaa anaga waxaan u baxsanaynaa magacaan rabno waxaan kala u baahanahay inaan ku qorno meeshan numberka pinka uu ku dhagan yahay IR receiver-ka kaas oo pinka 2 ah sababtan 2 u isticmaalna waxa waaye pinkan waxa waaye pin dhahayo interrupt pin macnaheedu waxa waaye oo Arduino-ga hadii oo signal meesha soo galo waxaan dhigi karnaa pinkaas ilaali markii wax dhacaan isla markaas hore nooga qabo marka setup-ka haddaan fiirino inta setup-ka waxaan sameynaa 2 wax yar oo fudud aan sameynaynaa waxaan dhahaynaa waxa waaye waxa bilowda waxaan dhahayaa serial si aan information-ka uga arki karno meeshan labose waxaad sameysaa enable waxa ku sameysaa waxa la dhahayo interrupt loop-ka haddaan tagno loop-ka waxaan sameynaa waxa waaye waxaan dhahaynaa haddii oo data helno IR receiver-kan waxaan samey marka intaan soo galaynaa inta markaan soo galno oo line ayaan qoranaynaa wax weyn ma aha kaas waxaan kala soo qoranaynaa received IR signal maxaa kaleeto waxaan rabnaa data intuu dhirir leeyahay kadibna waxaan dhahaynaa waxaad noo soo qortaa data naga soo galaya meeqa ayuu dhirir leeyahay dhirirkiisana waxaan ka wadadaa waan tusin doonaa waxaan kala sameynaynaa waxa waaye waxaan dhahaynaa waxaad noo soo qortaa magacaan kow oo anigu ku qortay horta mid kale aan rabay inaan sheegno waxa waaye
codekan waxa waaye code aan soo deynsaday oo aan dad sameeyaan arkay marka ma u baahni anigina mar kale qoro wax oo aan heli karo marka koodii baan isticmaalay wuuna ii fududeynayaa inaan hore wax kale u samaysto cusub aniga haddii wixii horeeto oo dhibka ii xalinayay dad ii soo sameeyeen marka waxaan sameynaa waxa waaye kanoo ayaan soo qoranayna waxaan samaysanaynaa waxa la dhahay for loopkan waxa waaye oo ka bilaabaya hal ilaa iyo xarafkan ida la dhahayo uu ka yar yahay lengthkan dhirirka oo dataha haddii kale waxaan leenahay hal ku dar kow waxaan soo qoranaynaa marka waxa waaye waxaan dhahaynaa noo qor dataha booska koowaad ku jirta kadib waxaan sameynaa waxa waaye comma space waxaan kaleetoo sameynaa waxa waaye si ay noogu fududaato 8 bidba markaan qorno ama 8 numberba markaan qorno line cusub aan bilaabaynaa maxaa kaloo sameynaynaa kan ugu dambeeyana waxaan dhahaynaa waa inuu ahaadaa 45 intaas markuu soo dhameeyo aan waxaan leenahay mar kaleeto waxaad samaysaa maadaama halkaan soo galnay wuxuu sameynaa waxa waaye disable ayuu ku sameynaa interruptigii mar labaadaan dhahayna enable ku sameey marka bal han fiirino siduu u shaqaynayo tan meeshaan ku shubanaya hadda lagu sameeyey kadibna waxaan dhahaynaa waxaan noo bilowdaa serialka noo bilaabay hadda waxaan sameynaa remote-ka waxaan taabanayaa meesha la dhahay demi ayaan taabanayaa kanuu noo soo qorayaa kow wuxuu noo soo qoray horta waxa waaye daatada dhirirkeedu waxa waaye 68 macnaheeduna waxa waaye daatada dhirirka waxaa laga wadaa meeqa number ayaa inta haysanaa 68 number waayu dhahayaa iyo waxaan dhan noo soo qorayaa 45 wuu ugu dambaysiinayaa marka kan ayaa soo copy garaysanaynaa file ayaan samaysanaynaa waa ku xaraysanaynaa okay kan wuxuu ahaa demi laakiinse su-aasha koowaad waxaa laga yaabaa isweydiinaysa inaad tahay maxaa laga wadaa waxaan nambaradan meesha tirada badan oo soo qoran maxay yihiin haddii dib aan ugu noqono softwareka data wax ku fiirinaynay nambaradan waxay u dhigmaan kan ugu horeeya horta maxaa waaye 962 490 haddaa fiirisid meesha nambaradan kuwani way yihiin macnaheedu waxa waaye waqtigii ee qaadanaysay pulse walba inta uu daaran yahay intuu dansan yahay intii waqti qaadanaysay ayagoo microsecond ah ayuu noo soo qorayaa marka kan wuxuu ahaa pulse-kii koowaad kanna waxa waaye kan labaad oo intuu dansan yahay kadib waxa noo bilaabanaysa datahan noo bilaabanaysa ilaa intaas dhan datahan yahay kan ugu dambeeya annaga qoranay marka wax kasta inta microsecond yahay marka sidaan u turjuman karna waxa waaye haddaan anagu rabno inuu kan noo sameeyo waxaa sameynaa waxa waaye python script-kan dhahayna marka loo turjumo waxa laga wado waxaa soo baxay marka nambaradii waa kan noo soo qoran yahay waxay u taagan yihiin kan haddaa rabtiina mar kale ayaa idin sharaxaya sidaan u sameeyey laakiinse nambaradan haddaan fiirino isla barbar dhigna kuwii hadda aan gacanteena ku sameynay waxaan ku qoran eber hal eber hal inta ku xigtana waa ebero waa 8 bid ugu horeeya waaye maxaa kaleeto kanna waxa waaye uu ka bilaabanayaa hal eber inta kaleetana waa kaasa marka kulli haddaad fiirisid kan gacanta ku samayn lahayn ayaa waxaan Python ku samaysanay marka way noo fududeynaysaa Python sideeda waxaa loo isticmaalaa inka badan qaadanaya inaad ku fududeysatid marka waxaan rabaa inaan hal mar fiirino nambarada kow markaan taabano muxuu soo qorayaa Python-ka aan ku copy karayno haddii button-ka mise numberka kow aan taabano command-ku wuxuu u dhigmaa haddaan ku turjuno decimal number waxa la dhahayo wuxuu u dhigmaa 136 haddii laba la taabtana wuxuu u dhigmaa 72 marka labada number waxay weligiin kuwaas waaye marka taasi xoogaa meel kale ahayd laakiinse daytaan hadda qaadanaynaa wax xareysanaynaa waxaan dib ugu diraynaa TV-ga kadibna waa halkaas ka dimin karnaa ama kow ka dhig laba ka dhig saddex ka dhig saasaan ku wadi karnaa marka kaasna waa sameeyey marka haddaan fiirino meeshan daatayaashii ka soo qaad kan demi iyo daar la dhahayo aniga hal meel ayaa TV-ga laga damiya laga daaraa marka demi iyo daar daatihiisii waa kana halkaan ku xareystay okay button-ka la dhahayana isaguna waa kana daatihiisa kan la dhahayo kow daatihiisa waa kana 2 3 4 5 ilaa iyo 5 number ayaan xareystay marka asagana code-kiisa aan fiirino okay marka waxaan samaystay waxa waaye waxa la dhahayo prototype mise function prototype waxa soo socda function la dhahayo increment aniga waxa waaye sub function-kaas maadaama meeshan aan dhihi doono increment marka hadduusan hore u soo arkinin wuxuu sameynaa waxa waaye qalad baa jira marka waxaan dhahaynaa function-kan wuu jiraaye sug marka sidoo kale IR centerkii waa kaasa interrupt pin waxa la dhahayo
kaas oo ah meel aan button ku samaysanayo aniga buttonkan u sheegana meesha ku dhigan yahay kaas waxa waaye pin 2 waaye pin mode macnaheedu waxa waaye pinkan u sheegaya inuu yahay input pin mase output pin waxaan dhahay interrupt pinku wuxuu ii noqonaya waxa la dhahay input kadibna pull up aan sameynaya macnaheedu waxa waaye Arduino gudihiisa ayuu wuxuu sameynaya resistor ku dhijinaya wuxuu ku dhijinaya supply-ga waxaan isticmaalaa waxa la dhahayo attached interrupt mase interrupt service routine waxa la dhahayaa rabaa inaan sameeyo kaasoo waxa waaye meesha argumentiga koobaad u baahan yahay ee tahay pinka ii sheega uu ku leeyahay pinku waxaan dhahayaa waa digital pin interrupt macnaheedu waxa waaye adi pin 2 waaye interruptkaas markuu dhaco maxaan qabanayaa uu leeyahay waxaan leeyahay waxaad tagtaa functionkan la dhahayo increment waxa kaleeto oo interruptigu uu fiirina waxa waaye signalka hadduu dhacayo macnaheedu forget signal hadduu soo galayo kan dhacaya waaye mase falling edge waxa la dhahayo waaye kana waa kan hore u aragnay labadan variable ka samaystay variable koobaad waxa waaye waxaan rabaa inuu tiriyo inta jeer aan taabanayo midka kaleetana waxaan rabaa inaan dhaho hadda kanaalka bedel change channel kan incremental la dhahayo marka hadda aan u boodno so functionka incremental la macnaheedu waxa waaye numberka sii kordhi ayuu u taagan yahay marka waxaan dhahay mar walba functionka gudihiisa la soo galo press counter inta jeer oo la taabtay waxaan ku dhahay mar walba hal ku sii dar waxa kaloo sameysana change channel kan lahayana halka dhig waxa kaleeto ilaalisa numberku inuusan ka badnaan 5 hadduu ka badnaado hal ayuu ka soo bilaabaya marka waxaan tagaynaa loopka meeshan la dhahayo marka waxaan fiirinaa waxa waaye ma dhahayo horta channelka bedel dee tahay waa hal meeshaas inta ayuu soo galaya waxaan sameeyay waxa la switch case kaas oo aan dhahayno haddii numberkan uu yahay hal waxaan sameey hadduu yahay 2 inta tag hadduu yahay 3 hadduu yahay 4 hadduu yahay 5 waxa hartaad meesha ku qor kartaa ilaa numberada rabtid kaani ilaa 5 baan dhahay tame marka hadda wax kaba soo qaad waxaan ka soo bilownay numberkan waxaan dhahaynaa marka koobaad aan bilowno waaye hal ayuu ku bilowday hal markuu ku bilowdo oo sameeyna waxa waaye wuxuu dirayaa kow wuxuu sugayaa 10 millisecond kadibna wuxuu dirayaa okay sababta aan sameeynayna waxa waaye ani TV-gayga markii oo number aad taabatid haddaadan okay taaban waxa waaye adi 3-4 second uu sugayaa marka si aan u suginin okay ka daba diraan leeyahay waxaana ii soo qortaa change to channel 1 okay haddii uu 2 yahay sidoo kaleeto data 2 la hayo dirayaa okayna wuu ku xijinayaa 10 millisecond kadib 3 4 5 sidaas kadib markii uu switchkaas ka soo baxana switchkan oo inta ku bilownay markuu ka soo baxana oo inta yimaadana waxaan sameeynaa waxaan dhahaynaa change channel waxa ka dhigtaa ibr sababtuna waxa waaye maanta dhan ma rabtid inuu waxba bedelayo sababta wax bedel waxaad leedahay markii adigu aad taabsatid marka anigu taabsadana waa markaas inta uu soo galayo oo kadibna halka dhigay hadda codekii waxaan ku shubnaa Arduino-ga waxaan ku baraweynaynaa marka TV-ga inuu shaqeynayo si aad u jeedin markaan button-ka taabto kanaalku wuu isbedelayaa waxa laga yaabaa inaad isweydiisin maxaa dhacay oo nalka uu ku jeedin weysay TV-ga dhankiisa laakiinse dhabarkayga waxaa xiga darbigaas oo nalka soo celinaya marka sidaa darteed ma u baahnin inaan ku jeediyo tan kale ay fududaynaysan waxa waaye kaamirada ayaa ka arki kartiin marka numberka taabto kanaalkii isbedelaya videoga intaanu ku dhamaaday waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iideen marka waxaad samaysiin haddaad su'aalo qabtiin ii soo qora midda kaleeto ay sheegi rabana waxa waaye codekii iyo schematicgii waxaan geliyay GitHub waxaana ka heli kartiin video description-ka. Assalamu alaikum.